kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warbixin gaar ah oo aan ku eegi doono xaaladda biyo-la'aaneed ee soo food saartay qaybo ka mid ah deegaanka Dadaab. marka hore daawadayaal intaan warbixintan u gudagalin waxaan naga xasuusinaa in haddii aad nagu cusub tahay aad subscribe saarto channelkan Dadaab TV channel si aad oga mid noqoto kumanaanka ku xiran taabagan baleelka si warbixinada nixiga ay ku soo gaaraan. hana iloobin inaad si share garayso oo aad la wadaagto asxaabtaada kale. xaalad biyo-la'aaneed oo baahsanaya waxay soo food saartay shacabka ku nool tuulooyin hoostaga deegaanka Dadaab sida Banani Qooqaar, Lehelay Sheeldhub, Sheebcad, Dhamajaali, Qodqod iyo weliba tuulooyin kale oo fara badan oo halkan aan ku soo xusi karin. shacabka halkaas ku nool oo u waramayay telefishinka caalamiga ah DTN ayaa waxa ay ka warbixiyeen xaaladda biyo-la'aaneed ee halkaas ka jirto iyaga oo sheegay in dhowr jeer baaqiyo kala duwan ay u direen dawladda iyo madaxdii ay soo doorteen aan laga soo jawaabin ilaa ay haatan. marka aad buuqato tuulooyin ay ka mid tahay Sheebcad waxa ay dadka deegaanka u biyo raadsadaan meelo ka baxsan halka ay ku nool yihiin iyaga oo dhaanka sugo in ka badan 6 saacadood oo joogto ah. carruurta iyo dadka nugul ee tabarta daran ayaa ah kuwa aan sugi karin dhaanka loo doono. waxa ay shacabkan oo markaasi aan kula kulmay tuulooyinka ay ku nool yihiin iga warbixiyeen biyo-la'aantaas iyo weliba halkay haatan biyo u raadsadaan. shacabka ayaa waxa ay madaxdii ay soo doorteen oo uu horkacayo xildhibaanka laga soo doorto degmada Dadaab ka codsadeen in lala soo gaaro biyo degdeg ah. deegaanka Dadaab inta badan waxa lagu xantaa ama la sheegaa inuu yahay deegaan wax ka qabtay arrimaha biyaha balse taasi waxa beenteynaysa oo meesha ka saarayso shacabkan ku nool tuulooyinkaasi aan kor ku xusnay oo runtii biyo Bahsan ay soo food saartay waxaana hadaladoodii ka mid ahaa maray la hadlaayeen TV-ga DTN sida tan. magacaygu waxaa la Cabdiwaxid Maxamed Maxamuud waxaan deegaan u ahay oo aan deganahay Dadaab sub county Garissa county qaasatan Dadaab sub county Dhamajaali ward waxaan deganahay Banani Qooqaar waxaan ka caawinaynaa oo cabashadaana aan ka soo jeedinaynaa biyo-la'aan biyo-la'aantaas oo muddo badan aan ka hadlaynay oon ka hadalnay ana inta qof ee mas'uuliyiinta noocyada kulli aan u wada sheegnay ama media ha noqoto ama mar ay wax doonayeen ee noo imaadeen ha noqdeen dhammaan mas'uuliyiinta governor oo ka bilowda Cali bin oo qorane uu ku xigo ninka la dhaho Maxamed Daahiye Ducaale area MB Dadaab MCA Diiriye Barre Cabdi dhammaan cabashada ayada aan ka jeedinayna maadaama ay noo ahaayeen dad mas'uuliyiintaanada ay ahaayeen waxaan u aragnaa cabashadaanadii iyo dhibkaanagii iyo waxaan sheeganaynay inaan waxba looga qabanin. Soomaalida waxay ku maamahdaa ceelna uma qodno cidna uma maqno ceelna uma qodno marka ceelna nooma qodno cidna nooma maqno marka waxaan caawinaynaa dawladdaanada county government ama national government inaan biyo-la'aan aan ka caawinayna biyo-la'aantaas oo sababtay ceelasha laba ceel baan lahayn. ceel wuxuu ahaa mid labada waxaa qodeen mid waxaa qoday county government midna dawladda horeeta ee national government noo qoday. midda hore ee national government ee noo qoday wuxuu ahaa ceel baaxadiisa ee uu ceelka qoditaanka uu qodan yahay uu yahay 170 mitir taasoo si loo baahnaa aan loo qodin. waxay sababtay arinta ayada inay bamka la geliyo uu gubto biyihii ceelka waa la qoday waa biyo maaxay markii bamka la geliyo uu guban marka waxay sababtay inay naga gubtaan 11 bam sida ayada darteed muddo 2 sano oo hadda 2 sano hadda 2019 kana sanad saddexaad ka bilaabanaya inta ayadana ceelka anagii aan ku nooleen ee ku deganeen inuu halaysan yahay. magacayga waa Bishaar Cabdiqaadir Sheekh Cali waxaan ka hadlayaa tuulada la yiraahdo Sheeldhub oo Lehelay ku magac dheer. dawladda gurud bay sameysay ceel bay noo sameysay hal ceel bay loo taagtay ceelka ay loo taagtay taagi ma leh dar ma leh bac baan ku cablaa bac dar ma leh taagi ma leh watakayuus ma leh mid isbayr ma leh wax uu leeyahay ma leh meesha ayada dhibtii ugu dambeysay haddii maanta uu ritay hadduu imaado dhaana waxaa loo kiciyaa motorka meel yaroo kayd ah ma leh taa waa baahidii motorka hadda meeshiisa aan taaganahay
wuu dayacan yahay waa boolka iyo birtaas oo haddaan rabbi laga waayin biyaha geyso dararkeeda way jaban biyo ma reebaan todobadii beri ma daasheed waxaan soo qaadaa 10 kiish oo shamiindo waan mariyaa akoonta ceelka wixii ugu dhacay darkaas aqow jaamaca ceelkana waa aniga biyaha waa taasoo baahi